saddex nin baa saaxiib ahaa waxay ku shaqaysan jireen bahalkan gaari dameerkan gaariga jiida iskaga shaqaysan jireen maalin maalmaha kamida iyagoo ka shaqaysanaya wadanka saddexdii nin way daaleen way iska soo rawaxeen intoodii raashin hayd bay iska soo qaateen iyagoo iska sheekaysanaya ayaa mid kamid oo hamigiisu caalay ha sareeyay ayaa labadii kale wuxuu ku yiri hebelow haddii aan wadankan khaliif ka noqdo oo madaxweynaha muslimiinta noqdo maxaad weydiisan lahayd wuxuu war inaga seexo ayna wareerinayni gaari ximaar la madaxweyne noqonaya adeer wax isqabanaya ma aha wadadeediiba ma haysidii iska seexab waa daashay war adigu ifrid ka soo qaad baan ku ribay ka soo qaad waxaan ku weydiisan lahaa haddaad igu celcelisay inaan sameeyo beerta hebel oo aad u weyn oo kale inaad maxaan ku siiyaa maxaan ku siin lahaa iga codsan lahaa waxaan ka codsan lahaa saddex arrimood beerta weyn hebel oo kale inaan helo soo waa beer agmar maalin walba markuu gaari ximaarka eriyayo saa u howrto barwaaqo badan iyo intaasoo farason ku damaashaado adoomo nooca iyo noocaas intaasoo kaashaho lacag gaari ximaarkuna aad ka nasatid buusley anu intaasaan ku weydiisan lahaa kii kale uu war adigu maxaad weydiisan lahayd war adeero suuragal ma gaari ximaar leen madaxweyne noqday inaga seexan ku leeyahay isniintii leeg ku celiyay wuxuu bal ka soo qaadina noqdayba ka soo qaadun adigu ifrid qadarba anigu waxba kuma weydiisteen maxaa gaari ximaar la wax ka weydiisanaya hadii ilaahay madax ka dhigay aniga hadii ilaahay madax ka dhigo aniga waxaad isaartaa buur gaari dameer isaar waliba isii jeedi suuqana imari waxaad tiraahdaa kaasi waa dajaal waa beeraale waxba ka dhagaysaninaay qofkii raacana waa la xirayaa ogeysiiska bixi buudaadeer annagu rajo kaama qabnay ninkii subaxdii buu gaari ximaarkii iibiyay habeenku saa ula tashanay buu gaari ximaarkii buu iibiyay kadibna dhar buu iibsaday oo way hagaajiyay wuxuu u xaadiray bilayskii la qorayay ciidankii bilayska wadanka loo qorayay ayuu xaadiray uu dadaalay aad buu dadaalay wuxuu u shaqeeyay si aan ciidanka kale u shaqeyn oo daacadnimo iyo hufnaan iyo hawlkarnimo leh xogaa garoomada la siiyo wala soo dalacay korba loo soo qaaday wuu sii dadaalay magaalada madax looga dhigay wuu sii dadaalay wuxuu gaaray ciidankii madaxtooyada ilaalinayay inuu ka madax noqdo ayuu gaaray markii dambena xokayntii khaaska madaxweynaha ayuu gaaray markii dambe waxa dhintay ninkii wadanka madaxda ka ahaa ayaa dhintay waxana markaas meeshii loo magacaabay inankiisii yaraa Hisham al-Muayyid billah inan yaroo 10 jira ayaa la yidhi dhaxaltooyada isaga ale qaladaadkii madaxda muslimiintu waqtiga gali jireen bay kamid ahay ninkii isaga ahaa halkii buu ka agdhow yahay waa ilaalinaya inankii yaraa iyo hooyadiiba gacantu ku dhigay oo uu sareeyo ixtiwaab ku sameeyay waxay sii socotayba markii la arkay daacadnimadiisii iyo dadaalkiisii isaga ayaa loo magacaabay inuu noqdo hawlfuliye ilaan habar iyo in ayaro meel soo fadhiya arrimaha culus umada fulin maayaan hawlfuliye loo magacaabay isaguna waxbuu yaro dhaqdhaqaajiyo markii dambe isagaaba taladii isku soo leexiyay almuhim meeshii uu qabsaday ninka la baxay buu ahaa taariikhda Spain Andalus akhrido al-Hajib al-Mansur حاجب كوا كي قارهيها إلالين لها المنصور نوا كي لو هيلي نينكي قارهيها ها هرم مري أيو بقع الشيء الحاجب المنصور هذا مكا كبار تاريخ دي سوى ذلك كريس نينكي وحو النقضي مدحدي مسلمين تهال كاسو مري رقي وقو جهاد بدنا وقو فتوحات بدنا الدولة دي هالكا كم مدح نقضا معركة يدقال وعدو قلق لينا taariikhda waxay sheegaan inaan lagu jabinin oo ilaahay uu siiyay nasriga uu ka sugayay akhiiran waxaan uga socdaa 30 sanadood maalintii uu campaign-ka bilaabay 30 sanadood kadib ayaa habeen isagoo la fadhiya culimadii iyo gawayaagi iyo ciyaantii wadanka iyo tujaartii isagoo la fadhiya ayuu warkii xusuustay ciidankii mid kamid ah uu yeero wuxuu warbal meesha heblaaye la yiraahdo magaalada tag
laba nin oo nooca iyo noocaas oo ciddaa ka soo jeeda oo xirfadda gaadhi ximaarka laydhaa ku shaqeeya bal soo dayday askarigiina wuu tegayoo wuxuu dayday waraystaba labadii nin buu soo helo weli sii nool isagiina waa madaxweynihii waddanka oo carshi dheer buu saaran yahay kursi dheer ninka laga agdhowiyey meeshuba u siraadantay waa isaga labadii nin baa markii uu yidhi waxa idin doonaya uu ku yidhi askarigii amiirulmu'miniinkii baa idin doonaya ninkii ummadda madaxweynaha u ahaa baa idin doonaya way qayliyeenoo waxay dhahaan adeer waxba maanaan samayn masaakiin baanu nahay adeer iska kaayada waxay moodeen in la xukumayo la xirxirayaabay moodeen ila madaxweynaha ku doonaya marka haddii la madaxweyne baa ku doonaya gaari ximaarka halkan ninka iska jiidanaya dee wuu qaylinaya wallaahi maanta qabtii weynayd baad ku jirtaaba odhanaya markii dambe wuxuu yidhi war wuxuu idiin doonayaba war kama haysaane hortayna keena way raaceen markii ay u tegeen dee 30 sano qofka bani aadamka siduu isu bedelaya waad garan karaysa ayay u fiirsadeenoo wuxuu yidhi may garanaysaa hebel iyo hebel baatiin haa soo labadii nin baatiin hebel iyo hebel la odhan jiray may garanaysaan buuri waanu ku garanaynaa bay idhaan adugu miyaadna garanaysa waan idin garanayaa buuri waataynu habeenkii halkaa iyo halkaa wada fadhiisanay arrinku waa sidaa dee maanta halkan aan taaganahay waaya qisadiinii ugu soo celiyay buuri barragga halkan fadhiya waa golob dhan oo dee ummadda madaxdeediia bal qisadii ku yaro celiya buuri berigii aynu isla halkaa iyo halkaa ku yaro celiya mid walaba codsigaagii bal soo jeedi buuri markaa wuxu uhi wallaahi aniga dee waa faraxsan yahay kii hore wuu faraxsan yahay wuxu uhi wallahi aniga codsigaygu caynkaasu ahaa oo kaasuu ahaa oo kaasuu ahaa oo kaasuu ahaa beer baan codsaday oo fardaan codsaday oo addoommaan codsaday oo lacag baan codsaday intiiba waad leedahay buuri maanta kii qasna joogu waar orod xogay maaliyadu mee oo arintiiba si codsigiisa kii kala wuxuu ku yiri adiguna maxaad codsatay wuxuu yiri cafis baan ka codsanaya la wuxuu codsaday oogay inaad cafido ayaan ka codsanayaa waar lagu cafi ma ay horta dadka u sheeg markuu ku celceliyada nafta ay qabatay ayaa uu sheegay wixii wallahi caynkaasaan ku uriyo caynkaasaan ku uri intii ku sameeyay buu hadaba isaga intoo gaari ximaarka dameerkii saartaan dib u jeediyo dadka dhexdooda wixii uu codsadun ku sameeyay wallahi inaan laga dhaafin marka muxuu ka duulayaa wuxuu ummadu casharo dhigaya wuxuu hankaaga liit mid hankiisu liitaaday saadaradeed laga saamixi maayo magaalada lagu wareejinaya almuhim qisa dhacday bay runtii iyaduna ahayd oo jirtay oo aad arki karayso marka waliba wuxuu u daliishay inna allaha ala kulli shay'in qadir si aad u ogaato bur ilaahay inuu wax walba karo oo aan ilaahay waxba ku adkaanin intii aad codsato baa maanta lagu yeelaya laga dhaafi maayo